wasiirka arrimaha gudaha mudane xasan cumar maxamed ayaa ku dhawaaqay natiijada doorashada oo mid ku meel gaar ah doorashada heerka degmo iyo heerka gobol oo dalka ka dhacday shalay oo Jimco oo taariikhdu ku beegneed 24 bisha 2 Febraayo 2017 Kominda Rasdika waxaa diiwaan gashanay inay codeeyaan 3250 qof waxaa codeeyay 1136 qof boqolkiiba 4.59 ayaa ka soo qayb galay waxaa xumaaday 24 cod waxaa hagaagay 1112 cod EMB waxay heshay 930 cod oo u dhiganta 4.43 boqolkiiba ECB waxay heshay 124 cod oo u dhiganta 15.56 boqolkiiba Kominda Balcos waxaa ka diiwaan gashanaa inay codeeyaan 66,000 oo qof waxaa codeeyay 26,750 qof boqolkiiba 40.17 ayaa ka soo qayb galay waxaana xumaaday 625 cod waxaa hagaagay 26,127 cod EMB waxay heshay 23,330 cod oo u dhiganta 63 boqolkiiba halka EDJ ay heshay 2,795 cod oo u dhiganta boqolkiiba 10.70 Kominda Balbala waxaa ka diiwaan gashanaa inay codeeyaan 55,708 qof waxaa codeeyay 23,047 qof boqolkiiba 41.30 ayaa ka soo qayb galay waxaa codadkoodii ay xumaadeen 367 qof waxaa hagaagay 22,680 cod EMB waxay heshay 19,890 cod oo u dhiganta 87.70 halka nasiib ay heshay 2,720 oo u dhiganta 12.30 boqolkiiba